kusoo dhawaada Qowl Media TV qodobada aad ku maqli doontaan warka Qowl Media TV waxaa ka mid ah gabar 14 jir ah oo u geeriyootay kufsi iyo jirdi loo geystay mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo muddo kordhin loo sameeyay Axmed Madoobe oo kulamo xasaasi ah ka wada dalka Kenya ciidamada xoogga dalka Danab oo howlgal ka fuliya deegaano hoostaga magaalada Kismaayo Turkiga oo shaaciyay xadiga lacag uu bil walba siin doono dowladda federaalka ah nin hubaysan oo dad ku laayay wadanka Canada haatana kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya guutada 16aad ururka 15aad ee Commandos-ka Danab ayaa howlgal ka fuliyay tuulooyinka Cabdi Dhoore iyo Beerxaani oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ciidanka ayaa khasaare u geystay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dhibaatooyin ku hayay shacabka xoolo dhaqatada ah ee degan tuulooyinkaasi iyo nawaaxigooda bulshada deegaanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay geesiyaasha Danab oo la wareegay gacan ku haynta Cabdi Dhoore iyo Beerxaani isbitaal ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa ku geeriyootay gabar yar oo 14 jir ah gabadhan ayaa u geeriyootay kufsi iyo jirdil ay u geysteen koox hubeysan oo haybtooda la aqoonsan gabadhan iyo laba kale oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in kooxdan hubeysan ay kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuur ay saarnaayeen inta u dhaxaysa Buurakaba iyo Walanweyn madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo weli ku sugan Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa kulamo ka wada gudaha magaaladaasi kulamadan oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxa uu madaxweynaha la qaatay xubno ka mid ah beesha caalamka isaga oo kala hadlay qodobo quseeya xaaladda dalka sida aynu xogaha ku helnay Axmed Madoobe ayaa xubnaha beesha caalamka ee uu la kulmay kala hadlay doorashada ka dhici doonta Soomaaliya 2020-2021 amniga iyo dhaqaalaha dalka sidoo kale waxa uu kulamadan lagu soo qaaday sidii ay beesha caalamka Jubbaland uga taageeri lahayd ka hortagga cudurka faafa ee coronavirus-ka Axmed Madoobe oo in muddo ah ku sugnaa gudaha dalka Kenya ayaa halkaasi kula kulmay mas'uuliyiin kala duwan iyo madax ka tirsan dalkaasi sidoo kale waxa uu heshiis horudhaca Nairobi kula gaaray xubnaha mucaaradka ku ah maamulkiisa ee Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar kadib gogol ay u dhigtay Kenya arrimahan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo weli halkiisa yahay khilaafka u dhaxeeya dowladda goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ka soo bilowday doorashadii muranka dhalisay ee lagu qabtay magaalada Kismaayo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Laftagareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xildhibaanada Koonfur Galbeed ka codsaday inay u sameeyaan muddo kordhin ayna ugu daraan muddo xireedkiisa muddo hal sano ah xildhibaano taageersan madaxweyne Laftagareen oo gaarayay 33 mudane ayaa guddoonka baarlamaanka u gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan in muddo xireedka madaxweynaha hal sano loogu daro kulanka baarlamaanka oo ay goobjoog ahaayeen 87 xildhibaan ayaa cod gacantaaga waxay ugu codeeyeen in muddo xireedka madaxweynaha Koonfur Galbeed loogu daro muddo hal sano ah si la isku waafajiyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday xadiga lacagta uu bil walba siiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya Turkiga ayaa daboolka ka qaaday in 2 milyan iyo 500 kun oo doolarka Mareykanka ah uu bil walba siiyo dowladda uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga ayaa markii ugu horeysay shaaciyay isagoo hoosta ka xariiqay in lacagtaasi ay dowladda Soomaaliya u siiyaan si ay ugu noqoto kabis dhaqaale safiirka ayaa
sidoo kale xusay in lacagtaasi 2.5 milyan ay qayb ka tahay miisaaniyadda dowladda si buu yiri loogu socodsiiyo shaqooyinka ay wado dowladda. Lacagta ay dowladda Turkiga ay siiso dowladda ayaa noqonaysa sanadkii 30 milyan, iyada oo la tix raacayo lacagta uu sheegay safiirka in ay khasnadda dowladda federaalka ah ku shubto bil walba. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow saaxiibka ula ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyada oo maamulada dalka ka jirana qaarkood ay ku eedeeyeen in uu qayb ka yahay cadaadisyada ciidanka iyo dhaqaalaha ee dowladda federaalku ay saarto. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Canada ee CNA, nin hubeysan oo ku labisan dharka booliska Canada ayaa rasaas uu furay waxa uu ku dilay ugu yaraan 16 qof oo uu ku jiro sarkaal boolis ah, waxaana sidoo kale dhaawacmay dadkii goobtaasi ka agdhowaa, waxaana dadkaasi ay ku sugnaayeen mid ka mid ah suuqyada loo fasaxay in dadku ka adeegtaan ee magaalada Botabig. Maamulka magaalada Botabig iyo laamaha amniga ayaa damcay inay gacanta ku dhigaan ninka hubeysan, balse waxa ay kala kulmeen iska caabin xoogan taas oo soconaysa muddo saacado ah, iyaga oo ugu dambeyn gacanta lagu dhigay ninka hubeysan ee dadka laayay. Boolisku waxa ay sheegeen in ninkani uu markii hore watay gaari muuqaal ahaan la mid ah gaadiidka booliska, balse markii dambe uu soo kaxaystay gaari kuwa raaxada ah oo shacabku adeegsadaan, isla markaana uu si bareer ah rasaasta ugu furay dadka shacabka ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa weerarkan ku tilmaamay mid naxdin leh, balse waxa uu tilmaamay in sharciga la geyn doono cid kasta oo ka dambeysay fal-dambiyeedyada uu ninkan hubeysan geystay.